cunugeyga waa iga maqan yahay cunugey beer wax dhala ahay askarinimana ma u rabo cunugeyga hal isiiyo farmaajo cunugeyga hal isiiyo asaa madaxweynihii Soomaaliya asaa mas-uul naga cunugeyga hal isiiyo bal qiyaas sida uu noqonayo dareenkaaga marka adiga oo hal wiil dunida ka haysta nolol adag iyo dhibaatana la soo martay koriinkiisa uu kaa maqan yahay muddo dhowr cisho ah isla markaana aan ka warhayn nolol iyo geeri marka hore dareeya ayaa loo wadaa yiri haddana waxaa leeyahay qadaraa loo wadaa marka cunugeyga agoonimaan kusoo karsaday aniga askari ma rabo xooga cunugeyga loo watay anigana ma geysanin ehelkeygana ma geynin cunugeyga nina maskax saaray cunugeyga xoogaa liiga haysta ani Shamso Faarax waa hooyo halkii wiil ay dunida ka haysatay isla markaana ay ku soo korisay nolol adag uu ka maqan yahay muddo 14 cisho ah waxa ay sheegtay in wiilkeeda Maxamed Xasan ay ka wadatay dowladda Soomaaliya awoodna looga haysto uuna hadda ku sugan yahay goob ciidan ee ku taala Muqdisho dhawaana loo qorsheynayo in loo qaado wadanka Qatar halkaas uu Maxamed ku soo qaadan doono tababar ciidan oo aysan hooyadiis raali ka ahayn madaxda dowladda ayay ka codsanaysaa in loo keeno wiilkeeda Maxamed oo 18 sano jir ah oo loo diiday inay aragto ama maqasho waxayna hadda ka walwalaysaa meesha uu ku dambeyn doono kadib markii lagu xujeeyay in ay bixiso $700 Mareykanka si ay u hesho wiilkeeda anin waxa gaariyaan ku dhahay cunugeyga lisi xascal qeere madaxweynaha sharafta leh ha isiyaan cunugeyga arintan waxa ka qabtaan ani beer wax dhalayahay askarinimo ma u rabo agoonnimo ku soo korsaday cunugeyga lisiyo bilaha marka ma bixi cunugeyga waxa la dhahay $700 keenan $700 baasa aniga $700 inuu dhintay nali warbuka ayo gurigeena shambari $700 guri laguma karinin biyo ma cabi kari cunugeyga baana cunugeyga lisiyo aniga Maxamed Xasan waxa uu indhow ahaa ayadiis waad aragtaan oo waayeel ah iyo hooyadiis oo wiil ahaan ifka asaga kaligiisa ka dhashay waxay noo sheegeen in wiilkooda uu waqti xaadirkan ku sugan yahay mid kamid ah xerooyinka ciidan ee ku yaala magaalada Muqdisho markii ay tageen waxa loo sheegay in wiilkooda dhawaan loo qaadi doono dalka Qatar si loo tababaro ama loo askareeyo Maxamed Bulbul Universal TV Muqdisho